بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بمهاد اسكالي waxaan rabaa inaan meeshan dhow qodob ka hadlo oo danta Soomaaliyeed iyo dantayda intaba ah. waxaan joogaa degmada Garbaharey gobolka Gedo markuu ugu horeeyay magacaygana waxaa la dhahaa Xasan Xursi Nuur dadku waxay ii yaqaanaan Indho Guduud. waxaan dhex joogaa beertaydii waxaan maqlay maalin dhaweyd aniga beerta ayaan tabcanahay weligay Allahay beertaana waan leeyahay beer kale oo cabaar ii jirto oo magaalada ka baxsanna waan leeyahay beerahaygan waxaan ku tabcanayeen ilmahaygan wax ku baranahay waxaa la sameeyay maalin way caruurtii ordaysa saddex wiil baa dugsiga sare ii dhigata oo Garbaharey saddexdooda midba meel baan u yeeray xanaanada digaaga mid baa qaabilsan oo xataa markuu digaaga u yeerahay anigu aqoonin oo digaagu hadalkiisa yaqaanay u yimaada konton xabbay marahaya beerahana mid baa qaabilsan aan rabay wasaaradda beeraha inaan dhaho ku biir hadow kana xanaanada xoolaha iyo aan dhaho ku biir iyo xanaanada digaaga sidaas baan horta aniga hadafkaygu ahaa waxaan arkaysaa anigu curyaan baan labada lugoodba way go'an yihiin kuwa Soomaaliyeed labadayda lugoodba waa go'an yihiin wata labadayda lugoodba anoo saasa yaa laba xaas leh anoo saasa yaan waxaan damcay inaan isliidin oo geed eber aan noqon oo aan dad gacanta u hoorsan oo aan baalka leeyahay aan wax kale aan gelin oo aan masaajidda inta maryaha dhigto magaalada aan bilaabin ee aanu dadka cagaha leh ama miirka qaba ama maskaxda leh aan la tartamo oo waliba ka dheeray yaan go'aansan waxaana abaabushay oo waliga abaabulanayay beerahaas ayaga ah baan wax ku cunayay ilmahan wax ku baran jiray saddex baa hadda dugsiga sare ku jirta school fee waxa laga qaadaa min $20 beerahaygan yaan ku kala baxay iyo wixii aan abuurto waxa wiilashii ordaya meel dhaway waa la yaabay yaayeen aabo beeraha sheegayso aan ku dilaysay waxa la yiri waxa laga qaadayaa cudur galeydii raashinkii daawada sareenkii cudur baa laga qaadayaa anagana beeraha dhulka tabcadaadna lahayd wax cudur laga qaadayaa lagu dilay naga daaway ku bilaabay anigu waa qoslay oo waa been baan waxaan u sheegay ilaa waligeed in beer la abuuranayay qof leeyahay kan karay ku rideen qof leeyahay jiray ku rideen midna lama arag waxaan u maleynayaa waxaan kala dagaalamayaa inaan wax abuurano oo wax tabcano oo gacmaha ay saarano oo darbiyada fadhino taasaa dadku ay rabaan waxaa la yaab leh ninka Soomaaliga oo dhaaya assessment baan soo sameeyay oo dhaaya WFP u shaqeeya oo dhaaya raashinka Soomaaliya ka baxo waa cudur baa laga hela ninkaas cadow weeye waxaan doonayaa inuu iska daayo dhibaatada noocaas dadku inay wax abuurtaan dhalinyarada lagu baraarujiyo dhulkooda ay tabcadaan waa tii la dhihi jiray nolol waxay ku jirtaa dhulka ee dhulka tabcada waa tii la dhihi jiray lagu heesi jiray sida ayaga waxba ma bedelin cudurna waligana kama aanan qaadin ilaa ka bacda beeraha la tabcanay beeraha ayaan la beexiri awal ba xoolihina la ka beexiray firtifaali bay qabaan baa la yiri waa beerihi baa hadda la beexiraya badana waxaa la dhihi doonaa kalluunku waa cudur socda yaa la bilaaban doonta annaga waxaas maraali kama nihin dawladuna waxaas inay ka jawaabtaan la rabaa wasiirka beeraha anu hadda ma dhageysan laakiin wuu hadlaa la igu yiri waxaan rabaa si fiican inay uga jawaabtay oo kuwa dhuuna qaatayaasha oo xogaaga salariga Soomaaliya oo siisanaya aad qabato oo tiraahdo assessment beanaha sheeginina ilaahayna ay ka baqaan anigu saasaan soo jeedinayaa waxaan intaas ii dheer laba luqad baa go'an tahay aniga intaas waxbaan dhaqanayo tabcanayo abuuranayo waxaynahay waana ku faa'iid dadka darbiyada jiifa iyo dadka xoogooda qaba laxaadkoodii qaba iyo kuwa curyaaminta yeesan magana la bilaabin oo dad gacanta u hoorsanine inay wax tabcadaan dhulka dhagu waa cusub wax walba ka baxaya yaa la rabaa aayar intaan ma qaataan yaan bala tabcada wax aniga intaan nawaayi baxaysa oo dadka gurigayga ka baxaysa beer kalena waa ay baxaysaa way ugu filanta hadda waa la artay sabuuladeedu waa soo tuurta wata way soo tuur sabuuladii waxaa la rabaa dadku inay wax tabcadaan asaagood ay gaaraan gacan hoorsi ay ka baxaan
Soomaaliya ay u shaqeeyaan oo ka shaqeysa waxaan waa galay waxaan waa digir waxaan soo dhan baabahay dadku waxa tabcadeen duryaamiinta waxaan leeyahay maalin walba magan Allah ku hayninine ninkii indhala waa indhala yahay midkii indha qabow labada lugood baa aniga go'meel uma fariisan midkii indha qabow wax tabco oo wax beero oo wax siyaadso oo hay'adu ay hana kaalmeeyaan hadda waxaan ku soo gabagabaynayaa warkay wixii maqlow ama dabada joog ama dalka joog una kale idin kaba rabo waxaan rabaa wasaaradda beeraha ama ha ahaad ama qurba joogta ha ahaad baa mootadan xunta ah oo lagu qaato balka iyo raashinka iyo baalka saddexda lugood loo doonta midaas in la ii gado una cidna kaba rabo ilaahay baan ka rabaa aniguna waa xoog baan leeyahay wali caruurtaydana waan ku ababiye waa shaqaysanaynaa beeraha naga falanaynaa hadda beertan webi maaha webi kama maaha waa agablo waa gurigayga agtiisa gurigayga waad aragtaan waxaan rabaa beer kalena xagga ku taalaado cabaar bay ii jirtaa ma gaaro waa lagu gulaa dabeer baa iga dhintay dabeerka iga dhintay mootadaasa ii daran dabeerkaasaan wal ku shaqayn jiray meel walba ku aadi jiray inaan shaqaystaan rabaa qofna aan baryin Soomaaliya ay ku dayato waxaan digile waxaan galay qof aan abuuran karin male qof ida xoog xun male ninkii indhala waa iga xoog xun oo labada indhood baa anigu intaasan warkay ku soo gabagabeynaya Soomaaliya warka gaarsiinayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka beerahana inuu soo waco waa jeclaan lahaa telefonkaygu waa 5 hal 5 8 4 3 hal 5 hal 5 8 4 3 hal weeye telefonkaygu aanu ka wada hadalno anigu saana wax u abuuranaya waana lugada wixii lagu siyaadi kale lagu siyaadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh